كوحدة بامبيدا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حبناها شرفت له أساسياش حزب عدالة وذا جيركا JSB مرتدى شرفت له جودهان شعب الصوماليات مالك أي جوغان وعنكو سلام يا سلامة إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحا شرف وين inaan hortiina soo istaago anigoo xambaarsan dareen weyn oo mas'uuliyadeed ee munaasabadan taariikhiga ah ee lagu daafurayo xisbiga wadajirka iyo xisbiga cadaaladda iyo wadajirka. walaalayaal, hannaanka dimuqraadiyeynta dalkeenna wuxuu leeyahay taariikh la yaqaano oo tusaale u noqon karta sida ugu habboon ee loo maamulo ama loo xasiliyo tartanka siyaasadeed ee ku aadan doorashada iyo kalsoonida cidda dalka ku hogaamin lahayd ajenda qaran oo lagu xaqiijinayo himilooyinka dadka Soomaaliyeed. 65 sano oo aan qarankani u soo jiray kadib muddo dheer ayaan ku taamaynay in aan mar uun dib ugu noqonno dimuqraadiyaddii ka hana qaaday dalkeenna 1960kii ilaa 1969kii. himiladaas waxaa lagu qoray heshiisyadii qaran ee uu ugu dambeeyey dastuurka dalka, kaas oo dhigaya in dalku isticmaalo hannaan dimuqraadi ah oo shacabku si toos ah u soo dooranayaan madaxda iyo golayaashooda siyaasadeed ee dalka lagu xukumayo laguna hogaaminayo. sidaa daraaddeed waxaan hortiina u soo istaagay caawa anigoo xambaarsan dareen weyn oo mas'uuliyadeed, kaas oo ah munaasabadan taariikhiga ah ee daahfurka xisbiga cadaaladda iyo wadajirka. daahfurka caawa ma aha keliya xisbi siyaasadeed ee waa bilowga dhaqdhaqaaq qaran oo cusub, dhaqdhaqaaqa ifbaxay rajada iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed oo raba in ay ka gudbaan mugdi siyaasadeedka keenay dib u dhaca iyo kala daadsanaanta raagtay ee dalkeenna iyo dadkeenna soo wajahay sanadihii la soo dhaafay. maanta waa maalintii shacabkeennu hiigsan lahaa mustaqbal ku dhisan midnimo, dimuqraadiyad iyo dowladnimo isla xisaabtan leh. walaalayaal, xisbiga cadaaladda iyo wadajirka waxa uu u taagan yahay in uu mideeyo waxaa ku midoobay siyaasiyiin ka soo kala jeeda qaybaha kala duwan ee dalkeenna iyo deegaano kala duwan intaba, kuwaas oo ku midoobay mabda ah in Soomaaliya yeelato mustaqbalka ay mudan yihiin dadkeennu waxa ay mudan yihiin mustaqbal cad oo aan mugdi ahayn, oo aan qof ku xirnayn, oo aan koox gaara ku xirnayn, ee ku xiran qawaaniin iyo heshiisyo lagu heshiiyey iyo hogaamiyayaal ummadda u soo bandhiga fikirka siyaasiga ah ee ay rabaan in ay ku horumariyaan ama ku xukumaan ama ku hagaajiyaan danahooda. walaalayaal, muddo dheer Soomaaliya waxay ku tiirsanayd hannaan ku meel gaar ah oo ku salaysan awood qaybsi beeleed deegaamaysan. waa hannaan lagu soo caanamaalay sidii akhyaartii iga horreysay oo dhanba ay u sheegtay xilliyo adag, balse aan loo abuurin in lagu hakado ama lagu hago mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. mustaqbalka Soomaaliya waa inuu noqdaa mid ku dhisan mabda siyaasadeed iyo matalaad dadweyne oo dhab ah ee aan lagu salayn qabyaalad, kala qaybsanaan
tii hore ee soo jiri jirtay guud ahaan nidaamka xisbiyada waa tallaabo loo qaaday dhanka nidaam siyaasadeed casri ah oo dimuqraadi ah kaas oo awood siinaya shacabka Soomaaliyeed isla markaana abaal marinaya kartida daacadnimada qofeed waxa loo yaqaan afka qaraad meritocracy sida hore looga wada dhawaajiyay caawa golahan dhalinyarada fadhida ee in badan oo kamid ah aanay fursad helin hore aanay u soo helin oo caqabado qaanuun oo aanay hor taagneen laakiin caqabado siyaasadeed iyo caqabado dhaqan ay hor taagnaayeen ayaa nidaamka xisbiyada badani oo ka gudbinaya ummadda dhalinyaroy waagiinii cusbaa maanta soo iftiimay dalka in la isku doorto fikir iyo talo qurxoon oo maslaxad dadka ka turjumaysa Soomaalidu waa tii hore ugu maamaaday madax madow ayaa maan ku haray marka taladu iyo hoggaanka dalkaba muxuu ahay dhalinyarada ayaa iska leh xisbigeenu waxa uu ku salaysan yahay laba tiir oo waaweyn cadaalad ku dhaqanka sharciga sinaanta dhowrista karaamada iyo xuquuqda muwaadin kasta oo Soomaaliyeed meel kasta ha jooge waa tiir la yaqaano oo lagu talageli karo tiirka labaad waa wada jir midnimo qaran oo u dhaxaysa deegaanada dalka oo dhan gobolada jiilasha kala duwan ee Soomaaliyeed ee kana waayeela iyo kana maxaan ku radaa da'yar iyo kana meel dhaxa iyo kana cilad kale leh aanan ku salaysnayn ee ku salaysan midnimada Soomaaliyeed oo dhan aaminsanaanta in Soomaaliya guuleysanayso marka ay wada jirto qofka xisbigana ka mid ah caawa wuxuu gacanta u taagay oo aqbalay inuu aaminsan yahay Soomaalidu inay guuleysanayso marka ay cadaalad hesho annay wada jirto qof kasto caawa halkan fadhiya iyo inta xisbiga ka mid ah jamhuuriyadda muxuu ahay dacaladeeda kala duwan ku nool ama dalka dibadiisa ku nool waxa xisbigu markay ku biireen ama kuwa ku soo biiri doonaba ay ballan qaadeen dalka inay u horseedayaan garab istaagayaan taageerayaan xoog iyo xoolo ku bixinayaan in cadaalad la helo iyo dadku inuu wada jiro oo aan dadka la kala saarin oo aan la kala foqoqin dadka waxa isku hay karaahay waa ogaanay qabiil ma aha waa ogaanay koox ajanda gaar leh ama koox diimeed leh ama koox kala leh ma aha dalka waxa isku hay kara fikir siyaasi ah oo laga dhax arko mustaqbal qurxoon iyo himilo suuban laga dhax arko ayaa dadka isku hayn kara dadku isku ma hayn karaan waxyaabaha kale ee aan ku daahnay ee aan maxaan ku habsaanay isbedel kasta waa xanuun badan yahay isbedel kasta waa cabsi badan yahay dhammaan waxa maanta noo furan wada inaan dhiirano wada kale ma qabno dibna uma noqon karno meeshii aan 25 sano aan soo joognayna ma sii joogi karno meesha Soomaalina aan inta u jeesanaynay maalin aan inta u jeesanaynay maalin aan muxuu hore soo eegayn laakiin meeshii aan taagnayn doorasho muxuu ahay 135 oday ha soo xusho 51 muxuu ahay qof ha doorato 101 ha doorato waa adoo meeshaada taagan marba dhinac u jeeso nama anfacdo ma taagnaa karno waa soconaynaa horaan u soconaynaa 35 sano ee adduunyadu ay horu martay ee technology-ga iyo aqoontu ay horu martay ee aan habsaanay ayaana sugaysay inaan gaarno oo orod iyo xawli dheer inaan ku soconaan u baahannahay inaan meeshaan ku nagaano dani kuma jirto dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ruubtooda hab furaan ha u furaan qof kasta oo Soomaali ah ra'yigiisa in lagu ixtiraamo la dhageysto lagu ceebaynin lagu caaynin lagu waxayn qof kasta oo Soomaali ah waxaan qabaa hal shardi in lagu xiro qofkaasi in aanu keenin talo horseedaysa ama ka shaqaynaysa ama fududaynaysa meesha inaan sii taagnaano meesha inaan sii taagnaano tala kasta oo aan
ku dhammaanayn aan meesha sii taagnaano ee ku dhammaanaysa aan hore u soconno waa talo sharfan oo karaamo leh oo la dhegaysan karo meesha aan sii taagnaano waxaa ka mid ah 25 sano ee jamhuuriyadda saddexaad ay jirtay habdhaqankeennii yaa ka mid ah waa la sheegay ma caynayno ma ceebaynayno waa u baahnayn maalinaan u baahnayn aan ku soo meel marnay aan tuul kale aaliyad kale aanan haysan inaan soo isticmaalno laakiin maanta aaliyad kalaan haysanaa tuulis kalaan haysanaa waxaa la yidhahaa ninka farsamo yaqaanka ah ee sanduuqiisa tuulka burisle uu ku jiraaye wax kasta waa u musmaar tuulka uu haystaa haddii uu buris bas yahay wax kasta u arko waa musmaar buriskaasuu la aadaya ille buris wax kaleba sameeye dadka tuulkooda sanduuqooda siyaasadeed oo eberka yahay ee doorasho dadban bas ay ugu jirtaa war caana hele tuul bokiska ku soo shubo tuulis fara badan aaliyaad kala duwan la imaaw afkaar kala duwan aqbal dadka inay meesha ku soo darsadaan aqbal sidaas ayaa hore loogu soco karaa han qabnaa hebelaa shaatigiisa tolan afkaarta qadiimiga ee haraadiga ah aan ka guurno hebelaa shaatigiisa tolanaya iyo koox hebelaa xagga ka dhacday iyo kanaa inta ka booday iyo waxaasi waa soo aragnay sanad doorasho ay dhacdo oo aan erayadaa la isticmaalin yaa sheegi kara annaguba allah ka dhigay aan soo isticmaalnay maanta aan ka soconno maalin un baan ka socon lahayn maalintii aan ka socon lahayn waa maanta soomaalnaan degdegin waa soo daahnay aan ka soconnaan dhihi lahay haddaba walaalayaal xisbiga cadaaladda iyo wadajirka aad iyo aad umahadsantiin haddaba walaalayaal xisbiga cadaaladda iyo wadajirka waxa uu u taagan yahay kow in dalku uu u gudbo doorasho qof iyo cod ah si codka muwaadin kastaahi uu u yeesho miisaan siyaasadeed oo macno leh labo xisbiga cadaaladda iyo wadajirku wuxuu u taagan yahay dhammaystirka dastuurka ku-meelgaarka ah si dalku u yeesho hannaan sharciyeed iyo maamul sal sharci ku fadhiya dalkan inuu yeesho dastuurka ka mas-uula inaan dastuurka dhammaystirno oon hagaajinno waa xisbigaani wuu ka shaqaynayaa axsaabta faraha badana dalka jirto dhan uu mid ka yahay laakiin isagu waa aaminaad uu aaminsan yahay anuu ka shaqayn doono haddii aan la yidhaha saddex maamul u dhow shacabka iyo awoodsiinta bulshada si horumar loo gaarsiiyo deegaan kasta haddii maamulkii iyo maxaanku raha taladii ay ka fog tahay dadka oo qof matalayo oo dadka uu matalaa tuule hebel dadka degan ama hebelaa matalo oo xamar jooga keliya ay noqoto dadkaasi ra'yigoodiina waa maqan yahay rabitaankoodii oo la dhegaystaan waa maqan yahay laakiin marka midka deegaanka la jooga ee tuulo degmada la jooga ay doorteen oo ay codkooda siiyeen wiilka hebel hebel la yidhaahdo ama gabadha heblaayo hebel la yidhaahdo codkooda ay siiyeen ee subax walba uu ka soo horbaxayo ee uu la joogo oo hadday aabaar tahay hadday aaran tahayba uu la joogo dadkaasi talada iyo siyaasadda waa u dhowdahay fikirkooda iyo rabitaankooda meeshii lagu dhegaysan lahaa laga maqli lahaa waa u dhowdahay marka midda deegaanka degmada laga tago ee dhulweynaha uu degmadaasi ay ka tirsan tahay la tagana mid kale oo ayadana meesha laga doortay ayaa jooga maxaanku rahdaa dowlad goboleedkii baarlamaankii dowlad goboleedku ku matalaa uu joogaa dowlad goboleedkii wixii ninkii hogaami lahayna ayagaa doorteen intaasi marka madaxweynihii dowlad goboleedka oo baarlamaankii dowlad goboleedka lasoo doortay ee ay ag fadhiyaan oo baarlamaankii uu gadaal usii fiirinayo deegaankii laga soo doortay iyo maxaanku rahdaa maamulkii deegaanka ee muxuu ahay meeshii jooga uu fiirinayo oo berrina uu u noqonayo uu rabo inuu cod ka soo helo qofkaasi khiyaar ma laha joyce ma laha
wuxuu ku qasbayaa dadka inuu wax u qabto dadka inuu dhageysto dadka inuu danahooda ka shaqeeyo ayaa ah ninkii iska laabto boorsidiisu aniga bas waa iska tagayaa yiraahay waa halkiisa laakiin kii kale oo siyaasadda inuu ku sii jiro rajo ka qaba waa inuu dadka dhageystaa xisbiyada nidaamka xisbiyada badanna wuxuu ka shaqaynayaa sidii dadka loo dhageysan lahaa ما شاء الله سو دhowaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarle ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121